بسم الله الرحمن الرحيم. ummadda Soomaaliyeed meel kasta jooga dhamaantood waa salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal salaam ka dad waxaan rabaa halkaan media socialka waxaan ku soo fariistay wiilagay ma soo fariisan waa dhibaato jirta awgeed dhibaatadaas oo ah walaalayaal waxaan ahay aniga faa'iiso wadani hooyada faa'iiso Cabdirashiid baan dhalay faa'iiso wadani hooyada ahay dhibaatada ay haysaa waxay tahay faa'iiso dhabarka intii la socoto ummadda Soomaaliyeed inta la soconba dhabarka watay ka jabtay iyadoo shaqo qaran hayso dhabarka ka bacdi adiga ka bacdi way dareen beeshay qaarka dambe ka dareen beeshay dawladda qaranka Soomaaliyeed baa waxay dhaheen waxbaan u qabanayna madaxweynaha live ay isku arkeen wixii waxbaan u qabanayna Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha ayuu ku xibnaajiyay ra'iisul wasaaruhu wuxuu waxbaan u qabanayna sidii loola waxaan qabanaa 5 bilood Muqdisho joogto ku qaadatay bacda 5 bilood ka bacdi waxa loo soo xil saaray wasiir Jamaal wasiirka qorsheynta qaranka wasiir Jamaal loo soo xil saaray sida inuu dhahay xildhibaanada markii hore u istaageen oo dhahan intay is xilqaameen waxbaan u qabanayna markii xildhibaanadu soo xilqaameen ka bacdi Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha yiri ana wuxuu qabanaya ballan qaaday ana wuxuu qabanaya ka fariista wasiir Jamaal leeyahay noo soo xil saaray wasiir Jamaal wasiirka qorsheynta wuxuu na keenay waana soo qaaday Soomaaliya waana soo qaaday wuxuu na keenay Nairobi markuu Kenya keenay daqafka waxa waaye faa'iiso qof maanta xibnaheeda maanta ku awood ku leh maahan waa qof saxaabay ka qaadayo waa qof dareen beeshay waa qof maanta dabiib u baahan islaam nabi maxamed u baahan waa mutane maxamed u baahan waa Nairobi markuu keeno ayuu wuxuu na geeyay hotel qaaliye lacag bakad maliyun ugu soo siiyay boorka gudihiisa lacagtii markaa nimid istaal gashay lacagtii istaalka ku dhamaatay iyo guriga bariyaha 10 bilyan degan hotelka qaaliga ah waxaan ka bacdi aan sameynay lacagta loo saartay waxaan guri bilaan keenay guri bilaan ku kirsan bishii way dhamaatay waxaan u yeernay masuulka safiirka oo joogo Soomaaliya Kenya Cali Bagadi wuxuu guri kadisi buu naga baxshay dib dambe wax noolaa marka 2 bilood joognay aan wasi bil iyo sanad markaan joognay oo 2 bilood xidhmay ay tahay aan wasiir Jamaalkii wacna waxaan wasiir Jamaal maxay taasaan 5 bari gudahooda gabadha lagu qaadahay ugu taliye 2 bilood si maraysaa maxaa waaye jawaab wuxuu idin maqan yahay dadinina in suuga 20 bari oo kale oo si marayso bishii saddexaad ay noo dhalatay bishii saddexaad ay hadda noo dhalatay ayaan ku cusub waxa wasiir Jamaal maxaa waaye horta telefoonada inoo qabo waaye waan raadinay markii dambe habeenkii doonoo hooyaha ula hadlay wuxuu yiri waxa yiraahdo maxaa dhacay markaa wuxuu yirantahay $200 iyo $200 waxa yirantahay safaaradda jawaabtaas ay soo way noo soo jawaabtana lacagtaas ay muujiyeen $200 iyo $200 maamul saan ka yeelnaa aniga haddaan waxaysto oo maanta awood leeyahay cidna waa tuugsadeen cidna waa baryotameen dawlad ma aadeen shacab walaaha Soomaaliyeed ma dhibaateeyeen haddaan awood leeyahay anaa qaada lahaa waxaan inkastoo ay gabadhu qaranka ka dhaawacantay oo faa'iiso wadani ay qaranka ka dhaawacantay haddana waalidku dhaw dhibaa waalidkii dhaw anay dhibtaa hooyo inta saqaasatan way dhibtaa aabba lama soo koriyo agoon camalan ku soo koriyo weligeed ku shilcid bin aleeran igu imaan dhibkeed aabba igu imaan abti kale igu imaan weli qof bini'aadan oo maanta kuma sheegi karaa ma jirto hooyo aabba la'aan ku soo koriyo ayadoo aabba qabtaan aabba la'aan ku soo koriyo xoogeeda maanta koobaad oo ii dhaqaaqday dhibkaana iiga dhacay oo ilaahay qadartiisa ku dhacday markaan hadda Nairobi ra'iisul wasaarka balkii wasiir Jamaal aan niri wasiir Jamaal uu yiri $200 iyo $200 ay safaaradda codsatay oo maxay lacagtaas la iska rabaa ayaan ku warcay waxa wasiir Jamaal ani maanta awood ma lihi oo maanta wasiir Jamaal awooddaas ma lihi oo dhan waxaysto maanta maxkamadda balkii kuma noqdeen maanta dawladdu ma qaran ma ala qaleen ummadda nabi maxamed oo bandhigtaan ana qaada lahaa qaran gabadhu ka dhaawacantay madaxweyne leh ra'iisul wasaare leh xildhibaan leh wasiir leh ma $200 iyo $200 awoodi waayeen ayaan ku dhaxay wuxuu dhahay kugu soo jawaab waa kugu soo warcinaya warceliska waxaan ka suusan jawaab uga sugaya teleefankii waa iga qabo waay jawaabtiisa ninkaas ay ugu dambeysay wax ii maqan iyo wax meeshan aan joogana waa gar la ahay waxa ay qabanay iyo wax u jooga mala waa la xaar isbuucda joogto isbuuc kale koomay
كله وحمصني وعلى لما حين ذا استعمل إيسا كومي كله اسمه بوش مركز في عنده قف كل شيء يسوي ملاينا يا قف عافي ما تقبل قف يو وما شاء الله يا ما ملاينا سعرني كانوا كسقطة لما حين ذا استعمل في مركزين وكومي كله أنا المهي تطبع عياله وأيضا لما يدشن ولا بتشنو يريها كسوتك waxaan uga soo tagay gabar saaxiibteeda oo qeyr raasiisa saakada qeyr alcabun aan soo tagay alcabun dawladii maanta halkaana keentay qarankeena keenay wuu naxaare ma hayno alcabun ilmaha ma hayno dawladii ayadii yani halkaana isku dhibaatoonahay maanta iyadoo isku rafaadsanah ilmihii meelay ku rafaadsan yihiin oo ay laba dhashay iyadu anna aan shandhalay laba jirna uu yar yahay koob toban jirna uu weyn yahay ayadaa shalayla korinaysay ayadaa ay garab taagneen maanta ayadii xaalka kaalmi ka qaadaya ummadda nabi maxamed iyo madaxda sharafta leh intaan ogaybaha ogaatee waxaan ka codsanayaa inay si ugu dhaqsaha badan ay faaiso waddan wax igula qabtaan oo ay garab istaagaan oo ay maanta nolosheeda maanta mustaqbalkeed waa baaba'ay waa 20 jir mustaqbalkeed waa baaba'ay nolosheedu waa daciiftay maanta boqolkiiba shan haddii 70 boqolkiiba maanta soddon ay maraysaa marka mustaqbalkeedii nolosheedii aadiinkeedii waa sii burburaya waan isku kor dhimanay ummadda nabi maxamed ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan rabaa inay waxay la qabsadaan qaasatan qarankeena madaxweyne cabdullaahi maxamed farmaajo xasan cali kheyr oo shalay halkan arrinteena ogaa oo naga aamusay xildhibaanada Soomaaliya aqalka sare iyo aqalka oo shacabkaba ummad wasiirada ummadda Soomaaliya inta oo bandhigana in wax laga qabto oo maanta la garab istaago oo maanta maanta leela gubto leela maxay wadannimo maanta leemujiya codsi idinkaga ahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh